وايدين سلام صاحبتي قالي جمال الباجوكتان waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan maalin wanaagsan aad baa idin salaamaya waxaan rabaa inaan ka hadlo kulanka ugu adkaa toddobaadkan horyaalka Premier League wadanka Ingiriiska waa kulankii Chelsea iyo Manchester City ka tirsanaa horyaalka Premier League marka loo fiiriyo labada kooxood Manchester City hadda waxay ka mid tahay kooxaha marka horyaalka u tartamayo maadaama kaalinta labaad iska fadhiso halka Chelsea ay tahay koox kaalinta tobanaad hadda kula hadlayo fadhiso tobanaad ayay fadhisaa googlaha gal ku qor Chelsea ama waxa ku qoraysaa Premier League table oo kala sareynta horyaalka Premier League waxa arkaysaa Chelsea kaalinta ay fadhiso okay hadda u maleysina been ku sheegay had soo fiirso taageeraha Chelsea ma aqbalayaan tobanaad fadhina hadda iska boojeenooyin waxaas laakiin ma jirto okay kulanka wuxuu ahaa kulan xiiso badan waa kulan la wada sugayo marka loo fiiriyo saameynta uu ku yeelan doono Haaland horta Haaland way iska xakameeyeen Haaland inay qabqabteen bay xakameeyeen horta Chelsea waxay tahay koox inta badan xidigaha suuqa ka doonayso dhanba waa daafac taasna waxay cadeysay kulankii xalay Haaland waa qabteen aan ku dhahno muu ogolaan fursad yar inkastoo kubad markaasi qaybtii dambe ciyaarta Pep Guardiola wax badan ka bedelay وبدلده وسميه درتيد جول أو كوي معتي ورد مهرس ومركا جول كادليي عيارتنا هاد عيار مركا لو في هيس الشذا كوبدا مركا هوري هي ستكوحدو مانشستر سيتي قيبه دنبنا إلى قيب ستكوحدو كوبدا عكتي تشيلسي أو هاد كوح هذا لدا لا دعيسو مركا لو في ريال كبريمير ليج ودنك إنجليز كجول دروين وانا كوح مركا أقل من البوسك هذا يجوكتو حدقا هي ستو دافعيد وبدن iyadoo daafac badan ay ka soo qaadanayso suuqa kala iibsiga daafacyo badan ay joogan hadana waa koox gool laga dhalinayo waa mid la yaabanaabo Chelsea daafac ma laga heystaa ma waxa laga heystaa qad dhexe ma weerarka kubadaha marka dhalineenin wax badan waxa haysato dhibaato am fahanteen sidoo kale macalinkooda iska bedeleen macalimiin badan iska bedeleen malaha aqoobadii waxa ku dhacda oo maleena Thomas Tuchel dhibaatadii ku dhigeen skink macallin walba la dagaalaya buriyam fahanteen waan ka soo baxday dhibaatadii marka the Blues Chelsea meesha laga haysto idinkaan laga rabaa okay madaafaca laga haystaa ma weerar baa laga haystaa ma qadaxa laga haystaa macallinka laga haystaa ma kooxda sanadkan noqon doonto koox maxaan ku raad sidaan le u gabgableyso inkastoo Chelsea ay ahayd kooxihii aad markaa looga cabsanay horyaalada Premier League sanadihii ugu dambeeyay firfircoonee top 4 ka soo galeysay koox cajiib ah xoog weynta marka sanadkan wax badan oo dhibaato haysato Blueska marka meesha laga haysto soo qora kooxda Chelsea meesha laga haysto Man City waxay rabtaa Arsenal inay horyaalka ku cariiriso hadda waxay soo gashay kaalinta labaad ee joogtaa dhibca badan ee markaa haysataa waxaynu ku dhowdahay kooxda Arsenal oo taaka loo dhigo kulankeedii hadda Newcastle United ay la ciyaartay Manchester United horta iyadoo waxay iska joogtaa top 4ka iska badinaysa sanadka ayaa u dhacay Ronaldo ay ka reesataa ku dhahay marka naadiga Chelsea ayada dhan daafaceeda la soo wareegtay Maguire badan way la soo wareegtay maxaa yeelay mar walba daafac soo qaatay Chelsea daafac la raadisa haddana gool ka dhalanayo waa mid la yaab kale hadee bareejo xataa ku socaleedo wax laga dhalinayno eber ciyaartay ku dhamaatay xataa way fiicnaaleed marka Chelsea dhibaatooyin badan haysto meesha laga haystana waa cajiib daafac way soo qaadanaysaa unlike waxa aslee waxa laga haystaa qadka dhexe iyo sidoo kale weerarka oo weerar dhameystiranaysan haysan kooxda Blueska marka dhibaatooyinkaas oo badan aslee way isbiirsadeen sidoo kale macalinka aslee aan xoogaa khibrad uma lahan ama wala qabsanayaaba dabcan kooxda markaas Chelsea marka dhibaatada Chelsea haysato soo qora daafaca qadka dhexe intee laga haystaa Manchester maanta waxay la ciyaaraysaa kooxda Everton waa tartankaas dabcan FA Cup weeyaan wax saameeyna ma lahan marka loo fiiriyo ciyaarahan maadaama kooxda kubadda cagta Manchester United horyaalka Premier League waa badis FA Cup weeyaan Premier League waa badanays sanadka cusub Manchester ma laga badin okay kulankan waa kulan FA Cup I hope inay badinayso 5 saac soo gala kulankaas marka ani waxa idin leeyahay Blueska meesha laga haysto soo qora Blueska intee laga haystaa daafac way soo qaadanaysaa goolana ka dhalinayso ashaas mis weydiisan waa cajiib samahan Arsenal horyaalka wali muu calaamad saaran ogaadaya kulamada soo socda ku qiimeena Arsenal hadii horyaalka u qalanta inay qaado hadii kulamada soo socdo istiiriso badiso ana u saxiixay koobka Premier League-na Emirates ana ka dajinaa waa faanteena oo maleena jimco wanaagsan guys